Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada Bulsho Sports TV wararka ciyaaraha idinkaga heen waxaa ka mid ah Allegri ayaa doonaya inuu Pjanic kula midoobo kooxda Juventus. Arsenal ayaa wali la kulmin qiimaha rasmiga ee Nabil Fekir. Marseille ayaa ku dhow inay la soo wareegto David Luiz. intaas waxay ahaayeen qodobadii wararka ciyaaraha haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Allegri ayaa doonaya inuu Pjanic kula midoobo kooxda Juventus. warkan waxay noo faahfaahinaysaa Muno Cismaan Cali. Massimiliano Allegri ayaa doonaya inuu diyaariyo qorshihii uu ku heli lahaa Pjanic sida laga soo xigtay Tutto Sports. Tababaraha reer Talyaani ayaa u sheegay ciyaaryahanka qadka dhexe ee Barcelona inay jirto door muhiim ah oo ku sugaya Pjanic inuu marka lagu dhex arko Allianz Stadium xilli ciyaareedka soo socda. Pjanic ayaa u dhaqaaqay garoonka Camp Nou xagaagii hore markii uu ka soo dhaqaaqay Juventus, laakiin wuxuu ku dhibaatooday inuu boos joog ka helo safka macalinka Barcelona Ronald Koeman. Ancelotti ayaa doonaya weeraryahanka Chelsea ee Werner. Real Madrid ayaa indhaha ku haysa xidiga kooxda Chelsea Timo Werner. Carlo Ancelotti ayaa qorsheynaya weerar lama filaan ah uu ku qaadi doono Chelsea si uu gacanta ugu soo dhigo Timo Werner. weeraryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa ku dhibtooday qaab ciyaareedkiisii intii lagu jiray tijaabadii xilli ciyaareedka 2020 ilaa 2021 horyaalka Ingiriiska, laakiin tababaraha cusub ee Real Madrid ayaa wali ah taageero weyn. Timo Werner ayaa kooxda Chelsea ku biiray sanadkii 2020 waxa uuna heshiiska ka dhacayaa dhamaadka bisha June ee 2025. Arsenal ayaa wali la kulmin qiimaha rasmiga ee Nabil Fekir. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Xuseen Cumar. Arsenal ayaa mar kale baadigoob ugu jirta Nabil Fekir, laakiin AS ayaa warinaysa Real Betis qiimaha ay ku doonayso aan wali la hubin. Arsenal ayaa dareenkeeda dib ugu celisay iyagoo doonaya inay kooxda ku soo daraan kubad sameeyaha cajiibka. Maamulka kooxda Arsenal ayaa xidigan ku tilmaamay Nabil Fekir ayaa ka helay signal muujinaya inuu doonayo inuu ka tago kooxdiisa Real Betis xilli ciyaareedkan. Marseille ayaa ku dhow in ay la soo wareegto David Luiz. Faahfaahinta warkan waxaa noo haysa Muno Cismaan. Marseille ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa daafaca Brazil ee David Luiz sida laga soo xigtay warbaahinta France. Jorge Sampaoli ayaa doonaya inuu dhammaystiro heshiiska 34 jirkan kaasoo lagu heli karo beeca harta ah kadib markii uu ka tagay Arsenal. Luiz ayaa 20 kulan oo Premier League u saftay Arsenal xilli ciyaareedkii hore, laakiin looma soo bandhigin qandaraas kordhin. waxaa la filayaa kooxda ka dhisan horyaalka Faransiiska ee Marseille gacanta ku soo dhigi karta wiilka reer Brazil ee David Luiz. Umtiti ayaa ka tagay kooxda Barcelona. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xasan Cumar. Samuel Umtiti ayaa liiska ciyaartooyada iska waayay Barcelona waqtigan difaacan dhexe ee reer France ayaa hadda soo dhaweynaya inuu noloshiisa wax ka bedelo maadaama uu hayso dalabyo fara badan waqtigan. Umtiti ayaa dhagihiisa waxa soo gaaraya inuu ka mid yahay xidigaha waqtigan ay Barcelona suuqa dhigtay maadaama uu ku guuleystay inuu iska caabiyo oo sii joogo Camp Nou, balse haatan wuu ka niyad jabay kooxdiisa. Linard ayaa doonaya in Keane sii joogo kooxda PSG. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Cabdirasaaq Cabdi. madaxa kooxda PSG Leonardo waxa uu wada hadal la yeeshay wakiilka xidiga Mino Raiola oo ku saabsan Moise Kean. Moise Kean ayaa dhammaystiray ama xilli ciyaareed ah oo uu Paris ku soo qaatay Everton xilli ciyaareedkii hore. wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa sheegay in Leonardo uu dhawaan la kulmay Mino Raiola halkaasi oo lagu wargeliyay inuu Kean mudnaanta uu siinayo inuu sii joogo kooxda reer Faransa. xaqiiqdii Kean waxa xiiso ah uma laha inuu ku laabto garoonka Goodison Park xilli ciyaareedka soo socda, inkastoo uu kooxdiisa hore Juventus ay sidoo kale isha ku hayso weeraryahanka, wuxuuna doorbiday inuu heshiis joogto ah la galo PSG. xaqiiqdii Kean wax xiiso ah uma lahan inuu ku laabto garoonka Goodison Park xilli ciyaareedka soo socda, inkastoo uu kooxdiisa hore ee Juventus ay sidoo kale isha ku hayso weeraryahanka, wuxuuna doorbiday inuu heshiis joogto ah la galo PSG. waxaa halkan kusoo gabagabeynaynaa wararkii ciyaaraha ee Bulsho Sports TV anigoo ah Qamar Maxamed Cumar. kulanti dambe oo xiiso leh.